بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa sahan academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha kani waa muuqaalka koobaad ee muuqaalo taxana ah kaasoo aynu ku sharxayno ama aynu si guud uga hadlayno buugga maadada chemistry-ga fasalka form 4ka exampleska ku jiro oo markaasi si concept ahaan markaasi aynu kaga jawaabayno waliba qaybta problemska ugu badan ku jira sida chapterada markaasi ugu horeeya chapterka koowaad buugga chemistry-ga marka buugga macnaheedu wuxuu ka hadlayay maxay wax la yiraahdo hydrocarbons iyo markaas ka hadlayay hydrocarbonka markaan ka hadlaynay dhowr mar ayaa markaasi qeybinay waxa waaye dhowr anagoo ka fiirinayna dhowr meel mar waxaan u qeybinay wax la yiraahdo saturated mar waxaan u qeybinay saturated hydrocarbons kuwa markaasi dheregsan saturated marna waxaan u qeybinay maxay unsaturated ayaa markaas u qeybinay hydrocarbonska markaan ka hadlaynay qaar kalena waxaan u qeybinay waa unsaturated hydrocarbons ayaa markaas u qeybinay unsaturated hydrocarbons saturatedka waxaan dhahnay isaga waxa hoos tago wax la yiraahdo ama saturated hydrocarbonka kaliya waxa hoos tago waxa waaye alkenis soo marka muuqaalkan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa wax la yiraahdo alkenis ayaan markaas ku qaadaa dhigi doonaa halka unsaturatedka markaan ka hadlaynay waxay ahaayeen saddex shay ahaayeen alkenis iyo sidoo kale alkynes iyo sidoo kale aromatic hydrocarbons iyo markaasi ahaayeen qaybta maxay oo unsaturatedka waxaan leenahay aromatic hydrocarbons iyo markaasi ahaayeen soo marka asal ahaan guud ahaan sidaan ayaa markaasi loogu qeybiyey waa markaan ka hadlaynay maxay hydrocarbonska qaybtan marka waxaan ku qaadaa dhigi doonaa waa qaybta loo yaqaano maxay saturatedka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa ilaan qaybtan waxaan sheegnay in ay tahay ama qaybta hadda markaasi aan xariijinta meeshan saarayo waxaan sheegnay inay tahay wax la yiraahdo maxay unsaturated inay tahay ee markaasi sheegnay soo marka alkeniska ayaan markaasi si gaar ah ugu qaadaa dhigayna oo hydrocarbonska iyo markaasi ahaa chapterka koowaad sidaan markaasi horey u sheegnay soo marka meeshan waxaan ku qoraa aan dhaho chapter 1 waxaan ku qaadanaynaa waa hydrocarbons soo marka waxa waaye si guud ahaan waa markan waxaan ka fiirinaynay boundiska way marna meelo badan laga fiirinayay waa waxaad ku noqon kartaa qaybta kale soo marka alkeniska ayaa markaasi qaadaa dhigayna markaan ka hadlaynay alkeniska waxaan dhahnay waa isku dhisyo hydrocarbon oo saturated ah oo dheregsan kuwaasoo leh hal bound ay markaas leeyihiin ama hal dabar ay markaas leeyihiin soo marka alkeniska markaan ka hadlaynay waxay leeyihiin general formula ay leeyihiin ama qaacidada guud ee alkeniska ay leeyihiin waxay ahayd cn h2n plus 2 ay ahayd soo marka kuwani waxay noqonayaan waa subscript way intana waxa waaye waa subscript sida daraadeed marka waxa la yiraahdaa waa qaacidada oo maxay meesha waxa ka horeysa 2 ayaa markaasi ka horeyso soo marka 2n waaba qoran tahaybo 2n plus 2 ayaa markaasi noqonaysa waa qaacidada alkeniska markaasi ay leeyihiin soo marka meeshan la joogo waxaad awood u leedahay haddii tirada carboniska aad haysatid waxaad raadin kartaa waxa la yiraahdo maxay number of hydrogen ayaad markaas raadin kartaa qaacidada markaasi lagu helayo waxay tahay tirada hydrogenta waxaa lagu helaa labo lagu dhuftay number of carbon atoms lagu daray waxa waaye labo markaas lagu daray soo marka tani waa qaacidada marka la raadinayo hydrogen marka carbons aad haysatid way hadii hydrogen markaas lagu siiyo number of carbons markaas lagu dirane qaacidadan ayaad markaas isticmaalaysaa tusaale ahaan waxaan isticmaalaynaa example hadaan soo qaadano waxaad haysataa hydrogen ayaad markaas haysataa hydrogentu waxaa la yiri waa 36 soo marka hadii hydrogenta 36 ay tahay tirada carbonka meeqa ay markaas ama aan dhaho carbon ayaa markaas haystaa aan siday u kala horeeyaan aan dhaho tirada carbonka waxaan haysanaa tusaale 6 carbon
ayaan markaasi haysanaa tirada hydrogenka meeqa ay markaasi noqon kartaa soo marka qaacidada waxay ahayd qaacidada markaad dib u fiiriso qaacidada waxay ahayd hydrogen marka aad raadinaysid waxaad ku helaysaa laba lagu dhuftay tirada carboniska aad haysatid oo lagu daray labo soo marka aan ku bedelano mid waliba waxaan leenahay hydrogen waxaa lagu helaa labo lagu dhuftay tirada carboniska aan haysano waa sida meeshan ka muuqato waa 6 way sidaas daraadeed marka waxaan leenahay labo lagu dhuftay 6 kadibna lagu daray 6 kadibna waxaan leenahay lagu daray waxa lagu daraa maxay waxa way waa labo sidaas daraadeed marka 6 lagu dhufto labo waa 12 12 marka labo lagu darana waxay noqonaysaa waa 14 sidaas daraadeed marka tirada hydrogenta waxay la ekaanaysaa 14 hadii tirada carboniska ay noqdaan maxay 6 hadii markaasi ay noqdaan soo marka waa marka hydrogen markaasi lagu diro oo carbon markaasi aad haysatid way so marka carbon lagu diro tusaale kan waxaan leenahay waa example-ka koowaad example-ka labaad oo kale tusaale waxaad haysataa hydrogen ayaad haysataa tirada hydrogen waxa lagu dhahay waxa waaye waa 8 ayaa lagu dhahay waxaad raadisaa tirada carbonka waxa lagu dhahay markaasi ayadii iyo markaas lagu diray soo marka qaacidada asalka waxay ahayd hydrogen oo marka maani la raadinayo qaacidadan ayaa markaasi ka soo dhax saaranayna hydrogen waxa lagu helaa asal ahaan laba lagu dhuftay tirada carbonka aan haysto kadibna lagu daray 2 ayay ahayd soo marka qiimaha aan haystaan ku bedelana hydrogen ayaan haystaa oo waxaan haystaa 8 soo marka waxaan leeyahay 8 waxay la eg tahay waxa leeyahay marka labo intaas hadda waa iga maqan tahay oo inta waxay u taagan tahay waa number of carbon atoms way soo marka labo lagu dhuftay waa n way 2n ay marka noqonaysaa plus waxaan leenahay maxay 2 ayay qaacidadu ahayd soo marka qaacidada aan markaasi sameeyo maadaama markaasi aan rabo in aan markaasi sameeyo 2n kaligeed aan rabaa intan ay iga soo harto soo marka waxaan leeyahay 2 waxaan leeyahay hydrogen tirada aan haysto waxa waaye waa 8 marka hadii aad qaybta markaasi aad fiiriso hydrogen qiimaha aan haysto waa 8 labadana markaan u wareejiyo plus iyo wadata waxay noqonaysaa minus ay noqonaysaa soo marka waxaan leeyahay 8 minus 2 waxay la eg tahay 2n ay markaasi noqonaysaa soo marka 2n waxay la eg tahay 8 laga jaray leh aan ku bedelana marka ama aan baabi'iyo labadan oo n kaligeed ayaa markaas rabaa si aan n kaligeed u baabi'iyo ama n kaligeed aan soo saaro waxa n la socdo oo laba ah ayaa waxaan u qaybinaa labada dhinacba oo 8 marka laba laga jaro waxay la mid tahay waa 6 way 6 waxay la mid tahay marka ama 6 way 6 marka loo qeybiyo labo waxay la mid tahay waa 3 sidaas daraadeed n waxay la ekaanaysaa oo number of carboniska ah 3 ayay markaas la eg tahay waa markan waa tirada carboniska marka la raadinayo qaabkaas ayaa markaasi loo raadiyaa so qaybtan anaga alkenis kaliya ayaan markaasi kaga hadlaynaa si aad u heshid marka muuqaaladan oo markaasi dhammaystiran iyo kuwa kalaba oo la xiriira maadada chemistry gaar ahaan fasalka form 4ka waxaad markaasi ka helaysaa Sahn Academy online iyadoo lagu barayo hab markaasi casri ah oo iyadoo la isticmaalayo hab markaasi computerized ah sida markaasi shaashada ka muuqatada aad arki kartid xisaabaadka markaasi qaabka loo magacaabo marka lagu barayo form 4 oo dhan waa diyaar iyagoo markaasi dhammaystiran hadeertan classification ayaad markaasi arkaysaa oo si toos ah lagu barayo hab markaasi qof walba uu fahmi karo markaasi pure ah mid walbana waxa waaye example iyo wax markaasi la raacinayo iyadoo marka la isticmaalayo hab markaasi digital ah ama casri ah waan kugu soo dhaweynaynaa courseskan ama courseska guud ahaan ka baxa Sahn Academy waxaan u diyaariyay anigoo macallin Saciid Ahab qof waliba uu fahmi karo oo arday macallin iyo waalid intuba markaasi ay wax badan markaasi uu ka saacidi karo waliba gaar ahaan ardayda markaasi form 4ka ah aad ayuu markaasi u anfacaa sidoo kale waxaa xusid mudan ardayda dhigta jaamacadaha waa muhiim waliba qaybta markaasi organic chemistry-ga course-kaasi wax badan ayuu markaasi ka saacidaa wax badan ayaad markaasi ka fahmaysaa oo qaabka magacaabida iyo waxyaabo badan markaasi la xiriira waan kugu soo dhaweynaynaa marka la Sahn Academy iyo course-ka chemistry-ga fasalka form 4ka qaybta markaasi naqdinka ah intaynu kusoo gabagabaynaa muuqaalkan oo koobnaa oo aan kaga hadlayay maxay ama hordhac kooban aan ka siinayay
ama qayb markaas lagu qanco qofka inta uusan isdiiwaan gelin oo arki karo aan ka siinayay intaan ku kulmi doono muuqaal la mid ah muuqaalkan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa nabadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh